Weli waxaa dagaal xooggan ka soconaya dalka Itoobiya oo isbuucii hore uu dagaal ka qarxay gaar ahaan deegaanada waqooyiga dalkaasi ama Tigreeda. walaal si aan u gudagalno muuqaalkan like saar aragtidaada ka dhiibo oo share garee muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan like-na waa inoo muhiim mahadsanidin badan. Dagaalka gobolka Tigreeda ee waqooyiga Itoobiya ka qarxay ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya iyo ciidamada maamul goboleedka Tigreeda ee TPLF oo sheegeen in Itoobiya inteeda kale ay ka go'ayaan sidoo kalena doorasho dowladda dhexe aan raalli ka ahayn qabsadeen bishii Sebteembar. Dagaalka oo toddobaadkii labaad oo xiriir ah galay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in khasaare xoog leh ka soo kala gaaray ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa maamul goboleedka TPLF ee Tigreeda. Warbaahinta qaar ayaa ku waramaya in boqolaal shacab ah iyo ciidamada dagaalamaya ee dowladda federaalka ee Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigreeda ee TPLF ay ku dhinteen dagaalkan toddobaadkii labaad galay. Sidoo kalena waxaa lagu soo waramayaa in tirada dhaawacyada aad uga badan yihiin ciidamada iyo shacabka dagaalka soconaya ku dhintay. Dhaawacyada ciidamada maamulka Tigreeda ee TPLF ayaa la geeyay magaalada xarunta u ah maamulkaasi Tigreeda, Maqalla iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi, halka dhaawacyada ugu badan ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya la geeyo gobolka Amxaarada. Waxaana saraakiil caafimaad ay xaqiijiyeen in ka badan 100 askari la dhigay isbitaalada gobolka Amxaarada. Dhinaca kalena shacabka dagaalada deegaanada kala duwan ka dhacay ku dhaawacmay la geeyay isbitaalada deegaanada Tigreeda kuwana loo qaaday caasimadda Itoobiya Addis Ababa. Cabsida ugu weyn ayaa haatan ka taagan in ciidamada Itoobiya ay burburaan oo qowmiyad kala noqdaan maadaama ciidamo badan oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya oo Tigre ahaa ay u goosteen gobolka qowmiyadda ay ka soo jeedaan ee Tigreeda si ay u difaacaan. Dadka Tigreeda ah ayaa ka cabanaya Abiy Ahmed oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo ah qowmiyadda ugu badan dalkaasi, iyagoo markaasi sheegay in si aan cadaalad ahayn uu la dhaqmo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee 2018 la doortay. Xoogagga jabhadda xoreynta dadweynaha ee Tigreeda TPLF ayaa ah kuwa dagaal adag kula jira dowladda dhexe, waxa ayna leeyihiin saanad militari oo aad u tiro badan sida ay khubaro iyo hay'ado caalami ah sheegeen. Ciidamada Tigreeda iyo maleeshiyaadka xulafada la ah ayaa waxa ay gaarayaan ilaa 250,000 oo ciidamo dagaal u diyaarsan ah sida ay sheegtay kooxda xasaradaha adduunka. Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay aargudasho ka dhan ah qowmiyadda Tigreeda iyadoo ay jirto xiisad kacsan oo ka jirta dalkaasi Itoobiya. Sidoo kale kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda dowladaha iyo ururada caalamka ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalka Itoobiya ka soo cusboonaaday. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa isagoo wax sharaxaad ah ka bixin waxa uu shaqada ka ceyriyay taliyihiisii ciidanka, madaxii sirdoonka iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi. In ka badan 9 milyan oo qof ayaa khatar weyn ugu jiraan in ay ka barakacaan dagaalada. Gargaarkuna ma gaari karo Tigreeda maadaama la xanibay isgaarsiinta gobolka, sidoo kalena la jaray khadka internetka. Isqabqabsiga Tigreeda iyo dowladda dhexe ayaa soo bilowday 2018 markii uu xilka qabtay Abiy Ahmed, iyagoo toddobaad ka hor uu gacan ka hadal isku bedelay dagaalkaasi.